السلام عليكم أصحابي وإذن وذا السلامي سؤاشاني تود دادك إسو ويدية وحا واي دادك قاطو Employment and Support Allowance marka lasoo gaabiyo ESA warqada loo soo diro bariyahan ee loo soo diray dadkaasaytooda dhan waxaa waaye tan oo migration letter oo laleeyahay ka guura ESA ka guura waxaa u guurtiin Universal Credit marka su-aasha waxaa waaye markaan dalbado employment support allowance aan ka baxo aan dalbado Universal Credit waxay qaadataa 5 wiiga la dhahay maxaan ku sii noolaanayaa intaas marka waxa way waxbaan ku sheegay warqadanaytu 3 bilood aad haysataa laakiin 3 bilood goorta rabtay aad dalban kartay laakiin ani taladeedu waxa waaye kaliya waxa dalbataa maalinta ugu dambayso ay ku soo dhacdo maanta oo kale haday ku soo dhacdo lacagtaada employment support allowance ay ku soo dhacdo horay ka dalbo isla maalintaas ba dalbo teeda kale markaa dirtid warqadaas aad dirtid tan maanta ay ku soo dhacdo warqad ma ahan online ka dalbanaysa marka formka buuxiso online ka buuxiso helaan bariyo kadib waxa adiga 2 week kadib waxa ku soo dhacay tii ugu dambayso ESA oo hadana 2 week oo kale ku soo shubayaan oo dheeraad ah marka adiga 2 week labadaas gudahood waxa ku sii noolaato waaba haysataa hadii weli u baahan tahay markaas kadib waxa codsan kartaa deyn advance payment ayaad ka codsan kartaa Universal Credit sababtoo ah adiga verification way kugu sameeyeen waa ogaadeen documentigaaga iyo waxa oo dhan markay ogaadeen waa dalban kartaa ay teeda kale bariye markay ka sii maqantaa waxa fiirisa journalkaaga journalka waxa ka fiirinaysa to do list waxa la dhahaa ku jiraan hadii documenti laga rabo hadii wax kale laga rabo hadii su'aalo ku qabaan hadii ballan ku dhiganayaan meeshaad ka arkaysaa marka waa muhiim in aad gashaan si aad ka ogaataan hadii wax alla wixii laga rabo meesha kuugu soo qorayaan journalka muhiim inaad gashaan to do list iyo waxyaabo kale ku jiro commitment la dhaho marka adeegyadiina meeshaad ka heli kartaa insha Allah marka qaarna text message ku soo diraan laakiin journalka ayaa muhiim ah inaad gasho hadaadan gelin oo aad ka jawaabi weyso waxaad qalqiilay ka galayaan. Assalamu alaykum.